بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasheena qadarinta iyo qiimaha inaga mudan ku soo dhawaada barnaamijkeena qisooyinka waxaan ku soo qaadan doonaa oo aan ku dhex jirnay qisadii Abi Muusa al-Ash'ari. maanta intaan barnaamijka ku guda jirno waxaan ku qaadan doonaa sifooyinkii uu lahaa Abi Muusa al-Ash'ari, islaamnimadii Abi Muusa al-Ash'ari, iyo sidoo kale hadduu rabbi raali ka noqdo qabiilkii Abi Muusa al-Ash'ari uu ka soo jeeday ama uu ka dhashay. Abi Muusa al-Ash'ari ilaahay ka raali ahaadee waxa uu ahaa nin gaaban oo jir yar, waxa uuna xiran jiray surwaal isagoo ka cabsanaya in cawradiisa ay muuqato. sidoo kale markii uu quweysanayo waxa uu quweysan jiray xilliga mugdiga isagoo ka xishoonaya Eebe. Abi Muusa waxa uu islaamay goor hore. markii uu maqlay soo bixidda nebiga ayuu ka soo hayaamay deegaanka Yemen, soona gaaray Maka, waana islaamay. waxa uuna u hijrooday dhulka Xabashada. muddo kadibna waxa uu ku soo laabtay nebiga isagoo la socda qabiilkiisa ashcariyiinta. barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. inta qaybtiisa xiga aynu ku kulmi doonno. sidaa iyo amaana Allah.